Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay Iran doonayso wadahadal ay la gasho Washington kadib markii uu ku hanjabay in ay weerar ku qaadi doonto Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Arrintaas oo ka dhalatay tallaabadii adag ee xukuumadda Iran kula kacday dibadbaxayaasha. Hadalkan ayaa imaanaya xilli dhaqdhaqaaqayaasha Isniintii sheegeen in tirada dadka ku dhintay mudaharaadyada guud ahaan ee dalka ka socday ay gaartay ugu yaraan 544 qof. Iran si toos ah uguma aysan falcelinin hadallada Trump, kuwaas oo yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Oman oo muddo dheer ahaa dhexdhexaadiye u dhexeeya Washington iyo Tehran uu toddobaadkan dhammaadkiisa booqday Iran. Sidoo kale weli ma cadda waxa ay Iran dhab ahaan ballan qaadi karto, gaar ahaan iyadoo Trump ku adkaystay shuruudo adag oo la xiriira barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer, kuwaas oo Tehran ku doonayo in ay lafdhabar u yihiin difaaca qaranka. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi oo la hadlay diblomaasiyiin shisheeye oo ku sugan Tehran ayaa ku adkaystay in xaaladda si buuxda gacanta looga dhigay, isagoo hadallo kulul ku eedeeyay Israa'iil iyo Mareykanka rabshadaha, balse aanan keenin caddeyn. Taasi waa sababta mudaharaadyadu u noqdeen kuwo rabshado iyo dhiig daata wata si marmarsiyo looga helo madaxweynaha Mareykanka inuu farageliyo, ayuu Araghchi ku yiri. Inkastoo internetka la jaray, haddana Al Jazeera ayaa loo ogolaaday in si toos ah uga warbixiso gudaha dalka. Si kastaba ha ahaatee, Araghchi wuxuu sheegay in ay Iran u furan tahay diblomaasiyad. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baqi ayaa sheegay inuu wado xiriir u dhexeeya Iran iyo Mareykanka oo ay weli furan tahay, balse wadahadalladu ay u baahan yihiin inay ku saleysanaadaan aqoonsi, dano iyo walacyo wadaag ah ee aan ahayn wadaxaajood hal dhinac ah. Dhanka kale, Isniintii xukuumadda Iran ayaa wadooyinka ku soo saartay 10,000 oo taageerayaal ah oo muujinaya garab istaag oo ay u hayaan nidaamka talada haya, taas oo ahayd muujin xoog leh kadib maalmo mudaharaadyo si toos ah u loolamayay hogaamiyaasha sare ee Ayatollah Ali Khamenei oo 86 jir ah. Telefishinka dowladda ayaa baahiyay sawirro dadweyne oo aad u tiro badan oo ku dhawaaqay halkudhigyo ay ka mid yihiin geeriha ku dhacdo Mareykanka iyo geeriha ku dhacdo Israa'iil. Xeer ilaaliyaha guud ee Iran ayaa sheegay in dacwad noocaas ah lagu soo ogo dibadbaxayaasha, kuwaas oo qaadi kara xukun dil ah. Trump iyo kooxdiisa amniga qaranka ayaa sida ay sheegeen 2 qof oo xog ogaal u ah doodaha gudaha aqalka cad ka fiirsanaya jawaabo kala duwan oo ka dhan ah Iran, oo ay jiraan weeraro dhanka internetka iyo duqeymo toos ah ay fuliyaan Mareykanka ama Israa'iil. Ciidanka militariga arrintaasi wuu eegayaa, anaguna waxaan miiska saaraynaa doorashooyin aad u adag, ayuu Trump wariyaasha u sheegay isagoo saarnaa diyaarad Air Force One habeenkii Axadda. Markii wax laga weydiiyay hanjabaadda argosiga Iran, wuxuu yiri, haddii ay sidaas sameeyaan waan ku dhufan doonaa heer aanay weligood hore u arag. Trump ayaa sheegay in maamulkiis uu wadahadallo ku jiro sidii loo qaban lahaa kulan lala yeesho Tehran, balse uu ka digay in laga yaabo inuu tallaabo qaado ka hor kulanka. Waxaan u maleynaynaa in ay ka daaleen in Mareykanku garaaco, ayuu yiri Trump. Iran waxay rabtaa wadahadal, kulankana waa loo diyaarinayaa, balse waxaa dhici karta inaan tallaabo qaadno ka hor kulanka, ayuu yiri. Iran ayaa iyadoo u mareysa gudoomiyaha baarlamaanka Axaddii uga digtay in ciidanka Mareykanka Israa'iil ay noqon doonaan bartilmaameed sharci ah haddii Mareykanku xoog u adeegsado si uu u difaaco dibadbaxayaasha. Hay'adda Human Rights Activity New Agency oo fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegtay in ka badan 10,600 oo qof la xiray labadii toddobaad ee mudaharaadyadu socdeen. Hay'adda waxay sheegtay in 496 ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen dibadbaxayaal, halka 48 ay ka tirsanaayeen ciidamada ammaanka. Iyadoo internetka ay khadadka taleefanka la jiray, ayay adkaatay in dibadda laga xaqiijiyo xogta. Dowladda Iran ma aysan bixin tiro rasmi ah oo guud. Dad badan oo dibadda jooga ayaa ka cabsi qaba in go'doominta macluumaadka ay dhiirigelinayso garabka adag ee hay'adda ammaanka in ay qaadaan tallaabooyin dhiig leh. Dibadbaxayaal ayaa habeenkii Sabtida ilaa iyo Axadda buux dhaafiyay wadooyinka caasimadda ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka. Fiidiyowga baraha bulshada ku faafay ayaa muujinaya mudaharaadyo sii socda ilaa Isniintii, iyadoo mas'uul ka tirsan Tehran uu qiray arrintaasi warbaahinta dowladda. Telefishinka dowladda ayaa Isniintii duurkii soo bandhigay sawirro dadweyne u sii qulqulaya fagaaraha Eglab ama kacaanka Islaamiga ee Tehran, isagoo oo mudaharaadku ku tilmaamay kacdoon Iiraani ah oo ka dhan ah argagixisada Mareykanka. Siyooni ma aysan taaban cabashada dhabta ah ee shacabka ee la xiriira dhaqaalaha liita gudaha Iran. Cabsi ayaa hareysay caasimadda
goobjooga la hadlay AB ayaa sheegay in wadooyinka ay faaruqaan marka la gaaro saacada maqrib isla markaana ay si buuxda u ciloobaan marka la gaaro salaada cishada. Arrintaas waxaa qayb ka ah cabsida laga qabo in lagu qabto tallaabooyin adag ee ka socda. Boolisku waxay dadweynaha u direen fariimo digniin ah oo ku boorinaya waalidiinta inay ka ilaaliyaan carruurtooda ka qaybgalka isu soo baxyada. Mudaharaadyadu waxay bilowdeen 28 December kadib burburkii qiimaha lacagta Iran ee riyaalka oo hoos u dhac yimid in ka badan 1.4 milyan oo riyaal halkii dollar, iyadoo dhaqaalaha dalku cadaadis kaga jiro cunaqabateyn caalami oo qayb ka ah barnaamijka nukliyeerka. Dibadbaxyadu way sii xoogaysteen, ugu dambeyn isu bedeleen baaqiyo si toos ah oo uga dhan ah nidaamka talada haya. Video internetka ku faafay ayaa muujinaya meydad badan oo yaala xarunta mid dhaqameed ku taala duleedka Tehran, taas oo ay dad xog ogaal ah iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay sheegeen in ay tahay xarunta daawada sharciga ee Kahrazag. Sawiradu waxay muujinayaan meydad ku jira boorsooyin, iyadoo dadku ay isku dayeen in ay aqoonsadaan ehelkooda. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Denmark ayaa sheegay in isqabqabsiga Greenland uu marayo xilli go'aan kama dambays ah. Ra'iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen ayaa sheegtay in dalku wajahayo xilli go'aamo kama dambays ah oo ku saabsan mustaqbalka Greenland kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar kale cusboonaysiiyay hanjabaadiisa ahayd inuu xoog ku qabsan karo dhulka ku yaala Arctic-ga, iyadoo ka hor hadlayso shirar furmay Washington DC laga bilaabo Isniintii, kuwaas oo diiradda lagu saarayo tartanka caalamiga ee ku saabsan helidda kheyraadka ceeriin ee muhiimka ah. Ayay Frederiksen sheegtay in uu jiro khilaaf dhab ah oo ku saabsan Greenland, waxayna tiri tani waa xilli go'aan ah, iyadoo xustay in arrintan aysan u ekaanin oo kaliya mustaqbalka Greenland balse ay ka weyn tahay oo saameyn ku leedahay arrimo caalami oo ballaaran. Hadalkan ayaa ka jeedisay dood ay la yeelatay hogaamiyayaal siyaasadeed oo Danish ah, waxayna sidoo kale qoraal ku daawacday Facebook oo ku sheegtay in Denmark ay diyaar u tahay in ay difaacdo qiyamkeeda meel kasta oo ay laga maarmaan ku noqoto, xitaa Arctic-ga. Waxayna intaasi ku dartay, waxaan aaminsanahay sharciga caalamiga iyo xaqa ay dadku leeyihiin in ay aayahooda ka tashadaan. Dalka Jarmalka iyo Swedish ayaa si cad u garab istaagay Denmark, iyagoo ka hor yimid sheegashooyinkii ugu dambeeyay ee Trump ee ku saabsanaa dhulka ismaamulka ee Greenland oo hoos yimaada Denmark. Ra'iisul wasaaraha Sweden ayaa cabaareeyay waxaan uuna ku tilmaamay hadallo hanjabaad wata oo ka yimid Mareykanka kadib markii Trump uu mar kale ku celiyay in Washington ay wax ka sameyn doonto Greenland, ha ogolaadaan ama ha diidaane. Ra'iisul wasaaraha Sweden oo ka hadlayay shirka ku saabsan difaaca oo ka dhacay Saalaan kana soo qaybgaleen generaalka Mareykanka ee mas'uulka ka ah NATO ayaa sheegay Sweden, dalalka waqooyiga Yurub, dowladaha Baltiga iyo dalal badan oo Yurub ahba dhammaantood waxay garab taagan yihiin saaxiibkeena ama saaxiibadeena Denmark. Wuxuu intaas ku daray in haddii Mareykanku la wareego Greenland oo hodan ku ah macdanta, taasi ay noqon doonto xadgudub ka dhan ah sharciga caalamiga ah, isla markaana halis ku tahay in ay dhiirigeliso dalal kale in ay qaadaan tallaabooyin la mid ah. Ugu dambeyntiina, ciidamada Suuriya ayaa bilaabay baaritaano ay ku raadinayaan walxaha qarxa iyo hubka kadib markii ciidamada dimuqraadiga Suuriya ay isaga baxeen magaalada Aleppo. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa waday howlgallo amni oo ballaaran gudaha magaalada Aleppo kadib maalmo dagaal culus oo ay la galeen ciidamada dimuqraadiga Suuriya, iyagoo qaar ka mid ah dadka ku barakacay dagaalada ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan xaafadoodii. Ayay ciidamadu Isniintii ku mashquulsanaayeen ka saarista walxaha qarxa iyo hub yaalo qaybo ka mid ah magaalada. Howlgalkan ayaa yimid kadib markii dagaalyahanada ugu dambeeyay SDF ay Axadii ka baxeen Aleppo, taasoo ka dhalatay heshiis xabad joojin ah oo ogolaaday in dad iyo dagaalyahano laga daadgurayo xaafadda Ashraf iyo Sheikh Masuud loona qaado qaybo ka mid ah waqooyi bari Suuriya, halkaas oo ciidamada Kurdishka hogaaminayaan ay ka dhiseen maamul isku eg. Dagaaladii xooga badnaa ee qaraxay toddobaadkii hore ayaa la xiriiray wadahadallo hakaday oo ku saabsanaa sidii hay'adaha ay Kurdidu u maamulaan iyo dagaalyahanada SDF loogu dari lahaa dowlad dhismeedka Suuriya kadib heshiis ay labada dhinac gaareen bishii Maarso ee sanadkii hore. Dadka degan xaafadda Ashrafiya oo ahayd tii ugu horeysay ay la wareegeen ciidanka Suuriya ayaa bilaabay inay ku laabtaan guryahoodii si ay u qiimeeyaan khasaaraha, iyagoo Axadii arkay wadooyin ay addaasan yihiin biraha qaraxyada iyo muraayado jajaban. Inta badan dadka ayaa ku soo laabanaya Ashrafiya waxayna bilaabeen dib u dhis maadaama burbur aad u badan uu jiro, ayuu yiri wariyaha Al Jazeera Brent Smith oo ka waramay Aleppo.
wuxuu intaasi ku daray in arrintaasi aysan khuseynin xaafadda Sheekh Maqsuud halkaas oo ciidamada dowladda ka baarayaan walxaha qarxa. Smith ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Suuriya ay raadinayaan maxaabiis mucaarad ah oo SDF xirtay intii talada hayay hogaamiyihii hore Bashar al-Assad, kaas oo bishii Sebtembar 2024 xilka lagaga tuuray kadib markii ay awoodda la wareegeen ciidamo uu hogaamiyo madaxweynaha hadda talada haya Ahmed al-Sharaa. Hogaamiye SDF Masloum Abdi oo qoraal uu daabacay barta X ku sheegay in dagaalyahanada lagu daadgureeyay Aleppo iyadoo ay dhexdhexaadinayaan dhinacyo caalami ah si loo joojiyo weerarada iyo xadgudubyada ka dhanka ah dadkeena, ayuu yiri. Master Abdi ayaa ugu baaqay dhexdhexaadiyaasha in ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada joogtada ee xadgudubyada. Ergeyga Mareykanka Tom Barrack ayaa Sabtidii la kulmay madaxweynaha al-Sharaa kadibna wuxuu ku baaqay in la sameeyo dib u noqosho iyo wadahadal si waafaqsan heshiiska lagu heshiiyay isdhexgalka. Ka bixitaanka dagaalyahanada SDF ayaa calaamad u noqday in gabi ahaanba laga saaray jeebabkii ay ku lahaayeen magaalada Aleppo, kuwaas oo ay gacanta ku hayaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Suuriya sanadkii 2011. Inkastoo SDF laga daadgureeyay dhufayskoodii waqooyi bari Suuriya, haddana arrintan waxay u noqotay guul muuqata dowladda Dimashq, ayuu yiri wariyaha Al Jazeera Ayman oo ka soo waramaya caasimadda, isagoo ku tilmaamay guul istiraatiiji ah hoggaanka cusub ee Suuriya. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in dowladda si weyn ugu dadaalayso faafinta fariin ku saabsan midnimo qaran. Waxay dhacdooyinka Aleppo ugu yareeyeen howl sharci fulin oo kooban halkii ay ka ahaan lahayd dagaal furan oo ay la galeen SDF, taas oo muujinaysa inay xoogga saaraan isdhexgalka iyo midnimada Suuriya, ayuu yiri. Hay'adda caafimaadka Suuriya ayaa Axaddii sheegtay in ugu yaraan 24 qof oo shacab ah la dilay halka 129 kalena ay ku dhaawacmeen kadib weeraro SDF ka fulisay tan iyo toddobaadkii. Munir al-Maxamed oo ah hogaamiyaha warbaahinta ee waaxda caafimaadka Aleppo ayaa sheegay in khasaaruhu ka dhashay weerar isdaba joog ah oo lagu beegsado goobo dad rayid ah degan yihiin, sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga Suuriya.